wajigii koobaad ee dayactirka dhismaha garoonka kubadda cagta magaalada Burco ayaa maanta si rasmiya loo daafuray waxaana dawladda hoose ee magaalada Burco maanta bilaabeen binaynta iyo dib u dhiska garoonka kubadda cagta magaalada Burco xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi iyo xildhibaan Rashiid Faarax oo si wada jira warbaahinta ula hadlay ayaa ku wargeliyay dhalinyarada ku ciyaarta garoonkani in maanta laga bilaabo la xidhay garoonkii ilaa inta uu dhismuhu ka socdana aan lagu ciyaari doonin waxaanay bulshada u soo bandhigeen akoonkii lacagaha loogu ururinayay dib u dhiska garoonka kubadda cagta magaalada Burco sidoo kalena waxay xildhibaanadu fariin u direen shirkadaha ganacsigooda ku xayeysiista xayndaabka garoonka kubadda cagta magaalada Burco in ay gacan weyn ka geystaan mashruuca dib u dhiska garoonka Burco waxaanu maanta aan baqaadnay oo halkan u taaganay imka saacada bacadka inaanu bilowno ballanqaadadii dawladda hoose ay ku ballanqaaday gaar ahaan intii gaarkeeda ka shaqeynaysay inaanu dhaqaajino hawshii noo igmaday ee garoonka imika waxaanu bilaabanaa maanta oo runtii imika diyaar garoobay rinjigii iyo bilicdii gudaha iyo dibadaba ee garoonka biritana waxaanu ambaqaadaynaa bedelaadii albaabada geerarka waaweyn iyo daaqadiisa wixii dayactiraa labadaa face way wada socdaan maanta iyo biri qolada rinjiguna waa ila joogtaa waa kuwan shirkadii garabkayga taagan waanu kala saxeexanay riimkiina waniga gacanta ku haya joogoodii koowaadna waanu ku wareejinaynaa oo runtii ilaahay khayr ha siiyay xildhibaan Mubaarak iyo raacin sorry oo ahaa ciyaartoogii qadiinka ahaa ee gobolka ay ambaqaadeen bilaabeen qarankaas waxaan kale oo runtii wacyigelin ku sameeynaya ama aan dhiiri gelinayaa qolada xayeysiisyada ee garoonka ku xayeysiisan ee runtii shirkadaha ah inay ka soo qayb galaan anaga dhowr goorna horena u sheegnay cidina aanay ka lahayn garoonkan magacooduna halkaa uu ku xusan yahay in ay tahay meeshii ugu bilicda badnayd ay magacooda u quureen inay ku dhajiyaan inay ka qaybgalkiisa iyo contributionkiisa ay ka qayb qaataan waxaanu filaynay inay ugu soo dheereeyaan oo ugu soo horeeyaan akoonka lambarkiisa waanu shaacinay imkana waanu shaacinanaa runtii waa 017568 waa Alamsey Stadium Burco ayaa ku qoran waa dahabshiil akoonkaas wuu furan yahay qofka $1 ku diraya ka $1,000 ku diraya ka $10,000 ku dirayaaba wuu u furan yahay qolada shirkadana waxaan leenahay nin walba booskaagii intii kugu qorayd aad ku qoratide contribution kana ka qayb gal kana soo xaadir liiskaaga cusub ee runtii liisanka fognay dhamaantii wasiirka dhalinyarada ciyaaru maadaama ay waxaan tahay heer national heer qaranayta oo heer gobol ahayn wasiirku wuxuu noo sheegay marka hawsha annaga gobol ahaan aan dhameynay iyo degmo ahaan noo isku duuban in markaaba la bilaabayo xagga wasaaradda waa ka diyaar shaqadii roogina waa yaalaa lacagtii wasaaradda waa lagu daro waa diyaar marka waqtiga annaga aan dhameyno shaqada garoonka ay markaas u bay iyaguna bilaabayaan oo ku ballan shaqadii wala kala qaybsado waxana gobolka ale degmada ale waxna wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ale isagoo sheegay inta markaan sameeyno iyo kordhinta in 3 bilkood loo kaliyo dheeraynta waxa haraya markaa in la dhigo ciid qaadidii iyo roogii garoonka oo yaala oo lacagtii dhalinyarada sheeganayeen miisaaniyadda wasaaradda ku dartay iyaguna inaga sugayeen inaguna dhamaystirno waxaan runtii aanu mahadnaqnaa cid kastoo jecel horumarka gobolka horumarka degmada intii warbaahinta soo bandhigtay yaadii tahay dadka shacabka ay sida fiican ee aan daacadnimo ku jirto uga hadlay maanta wax naga go'an garoonka in la noqdo garoomada gobolada kale si ugu horreeyay kaarbad loo roog loo keen laakiin nasiib darro duruufaha sheegay aan suura gelin maanta waa ka aan Muuse ku wareejinay horumarin jeegiyo Burco bilaabaya subaxnimada waxaana koonka ku shubay anigu $500 anigu waan bixiyay jaakaraayna $1,000 bixiyay oo ga mahadnaqnaa runtii jaakarayn cid kastoo jecel inay ka qayb qaadato ay ku shireen hadii $10 leena iyo hadii $1 iyo hadii ku bixiyaan akoonka halka aan ku shaacinayno inaan soo furnay annaga 3 leena Rashiid Faarax iyo Absaaq Jalaal akoonkaas lambarkiisu yahay 017568 waa koob daabshil baa magaca ku qoran Alamsey Stadium Burco waxaan runtii maadaama shaqadii ay bilaabaysay berito oo dhalinyarada garoonka isticmaali jireen aad baan runtii aan uga raali galeynaa in garoonkii shaqa ka bilaabatay waqti aan lagu canaanaysay dhalinyarada gobolka hadaatiin garoonka maxaa loo liiso marka noo dulqaata oo u samra inta garoonku aan idinka shaqeynayno garoomadii kale ee magaalada ku yaalay kuwa ku ciyaara gabagabadiina waxay xildhibaanadu lacag dhan $1,000 ku wareejiyeen injineerka loo wakiishay dayactirka garoonkani dhismaha garoonka kubadda cagta magaalada Burco oo safka hore kaga jira goobaha muhiimka ee la dayacay ayaa hadda u muuqda in mar labaad uu lugihiisa ku istaagi doono garoonkani Maxamed Xasan Diiriye Maxamed Joker telefishinka caalamiga Ariel TV magaalada Burco